Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan. Waxaan rabaa video yar inaan duubo oo duubo fariin walaashay macaan Nadiira Neynuus. Kadib waxaan rabaa inaan dareensiiyo videogan wuxuu ku saabsan tahay inay ahayn wax xumaana ay tahay wax wanaag oo aniga aan rabo inaan kuu sheego qiso anigu dhacday adiga kugu saabsan aan wadaa. Walaashay horta intaan qisada wada guda gelin waxaan kaa codsanaa inaan horta fariintaan kuu soo diray inaad dhageysato waliba adigoo qalbigaaga niyadaada ay joogto adigoon mashquul aadan videoga muutin aan umada kale waxay ku sheegaan aan aaminin. Videogan waxaan ku soo duubay waxay tahay qiso igu dhacday inaan kaaga sheekeeyo kaliya. Amaasan tahay walaashay aniga xumaan kulma socdo wanaagan kula socdaa hadhiin gabadhan waxay rabtaa inay fadeexaysato ani fadeexis uma socdo. Gabadhan waxay rabtaa inay umada igu dirtay adiga waa iska fahmi kartaa qof walba bani aadana niyadiisa waxay ku soo dhaxayso waa iska fahmi kartaa. Marka walaashay marka hore dadka waxay dhahaan haba dhahaan aniga videogan waxaan kugu soo duubay wanaag aan kugu soo duubay hana isdeen maskaxdaadan ha gelin inaa xumaan kula socdo karato. Maribin horta videogan inaan ku soo duubo laakiin adiga waan ku raadiyay abiga meel walba ka raadiyay meelan kala soo xiriiraan waaye ma jeclayna social media inaan soo dhigo fariinta sidaas ay ku soo gaartay maribin laakiin way dhacday wax xumahay dhib malahan laakiin adii oo wanaag qof u socdo xumaan ma ahna isleeyahay laakiin waa maasantaa walaashay waxaan rabaa walaashay macaan inaan kuu sheego aniga ahaanteyda horta markaa soo bixiyay fanka ku soo biiris ilaa abtuna waan ku taageeraa waan ku jeclaa bis ilaa haddana meel walba waan kala socdaa riwaayadaha sidoo kale waan iska fiirsadaa waan ku taageeraa. Marka ilaahay wuxuu arkay jaceylka farada badan aan ku qabo iyo taageerada sidaan ku ahay inuu riyo ii ka tuso adiga riyadaasna waa riyo aniga caafimaadkayga iyo waxyaabo badan naxdin wax badan igu reebay. Marka ilaahay jaceylka ku qabo markuu arkay inaan taageero ku ahay walaasha aan ahay oo wuxuu igu tusay riyo riyadaasna waxay ku saabsan tahay aniga adiga horta waxaan ahayn laba qof oo walaalo isku aaba waa riyada dhexdeeda waxaa jirto maamo oo riyada nagu jirtay oon hooyadii ahayn aniga riyooyin badan waan riyoon jiray hooyadeen way ii soo sawiran jirtay laakiin maamadan waxay ahayd maamo dheer oo madow ahayd kastoo madow. Markaasaan waxaan arkay maamadii ani adiga israacnay hooyo qolkay ku jirtaan tagnay marka maamadu waa ani adiga dhashay qolkan u galnay waxaan dhahaynay hooyo maanta waa bixinay shoowa aadina Nadiira ala casuumay marka ani fanaanna miina walaalaha nahay oo kaliya marka waxaan rabaa inaan shoowa ku raaco. Maamadu waxay leedahay meel ma aadisiinay jooga waa tuugeena marka wayna fasaxay kadib waa libisanay waa soo wada raacnay. Marka riyada dhexdeeda baawur maraacin waxna maraacin anagoo socno waxa aragnay gadaasheena kumanaan dad oo nala socdaan oo rabaan inay adiga ku soo raacaan waayo fanaanadooda tahay way ku taageeraan maanta. Kadib anagoo socno showgiyaan tagnay waa iska soo baashaalay riyada markay oo ogtahay marka la riyoonayo riyooyinka qaar waxyaabo iska qasqasma adiga anagoo showga joogno haddana waxaan aragnaa haddana anagoo guri joogno dhahay oo madaxa xanuuna oo kale guri markaa imaanay adiga xanuunsatay madaxa xanuuna dhacday kadib
maamadu waxay dhahday habixin mani dhihino yaa baxnii dhahay anaa liigu qayli gabadhan yaa wad ku dhaadan yaa bax ku dha aduu waa la qayli kadib maamadu wax fudud u maleynaysa maamadu hooyaday ma ahan marka waa maamo dheer oo madow marka waxaan isdahay maadaama nadiir hooyadeed ay dhimatay si qalbigeyga leewaya maadaama nadiir hooyadeed dhimatay inay hooyadeed eeba tahay maamo kastoo caataneyn caata hamalan caata dhexdhexaad oo madow kastoo madow kadib waxay dhahday adiga yaa baxnii dhahay waan ugu qaylisay kadib adiga xanuunka kuu sii ziyaaday kadib maamadu waxay isdhahday gabadhii wayba sii darsanaysaa waxaan uga caay wadaadiin ay quraan ii saaraan waxaa loo wacay wadaadiina loo wacay minaha niman sheekhayaal quraan saaray imaadeen quraanka loo saaray waxaa jiro nin ka ugu weyn oo quraanka ka saaray waa nin cad timo dhaadheer leh iyo mara cad ku dugan markaasuu ka dhigay gabadhan waa sakaraad markaas maamadu waxay dhahay maxaa ka wadaa gabadha dhawa ii ficneeday ma sheekho quraanka isaa gabadheeda markaasuu ka dhigay gabadhan waa sakaraade hadda xagee ka imaaday markaas waxaan dhahay shoowe ka imaaday inay fanaan waa gabadhan sheekhi asigoo hadlin intuu istaago irida ka baxay nimanka kale la socdeen way wada raaceen xagee u socotay walaalkaal gabadha quraankii dhamay ee dhaal marka maamadu nadiir way sii darsatay waxaa la nadiiro waaba dhima rabtaay shahaado ay dhahay marka hooyada waa dhima rabtaay shahaado isa ilaahay xagiisa wax khayraadka la kun marka nadiiro waa arin naxdin maanta day ku ashaadan lahayd xataa ashaadan lahayd anima social media ma soo korin waayo wax fiican aan ku riyooday gabadhan fanaanada iyadoo oo ashaadanayso ku dhimatay dan maba iswareerinayeen maba fariintan soo gudbinayeen ma ashaadin marka waxa la ashaadan ma ashaadinin waxay qaaday hees xalxaluulato ee qaaday qaybta oo dambe ee qaaday kadib nafta sidii ugu baxday waa habeen saqdax aan soo booday wallaahi madax soo xanuunay waxa u maleeyay inay run tahay oo nadiir ila joogto meesha igu dhimato guriga inaan run joogo ee la noqotay anigoo naxsan aska aamusnaaday waxaan isdhahay wax walba oo shar ah khayr lagu bedelay sideen iskaga aamusay waxaa la yaabay marka waxba adiga bilooyinka ka soo wareegtay aniga maba iswareyn waa iska dhaafay kadib markaan arko heesteeda markaan nadiire heesteed arkabo ama hees ay shidanta ama YouTube marka arko oo magaceeda arko ama hees arko riyadii ay ku soo dhacayso marka dad badan aan weydiiyay dad badan aan rooyadaas u sheegay waxay igu jawaabeen oo aniga niman wadaadin aqaano oo igu jawaabeen riyadaas ilaahay wuxuu kugu tis inaad fariinta gabadhaas u gudbisid ani horta fariinta waan ku soo gudbiyay walaashay marabin inaan soo gudbiyo marabin inaan ku riiriyo marabin inaan macnaha wax xun ama dadka hortoodina waxaas ku soo sheego laakiin markaan arkay laba mid markaan arkay showgii Nairobi markaan arkay wallaahi ma isdhihin nadiira saas u soo labisanayso ma isdhihin horta markaan arkay waan ogaan inay kadib riyadii waxaan ku aansaday inaan soo sheego oo ku soo diro waxaan rajeynaa 100% waxaan rajeynaa anigu adiga isku dambi adiga waad haystaa anina waa dhageystaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay soo wada hanuuni qaasatan adiga waxaan ka ilaahay kaaga baryaa nadiiro inuu ilaahay ku soo hanuuniyo walaashay 100% ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ilaahay ku soo